baryahan Arsenal ayaaba ah kooxda qatarta badan ee xooga badan maxay yeelay lixdii ciyaar la soo dhaafay oo ay labada koox ciyaareen marna Manchester Man u adkaan waxa lagu soo bilaabay ciyaartooyga kan ee kala ah Master Saif oo goolka ku soo bilowday Dalot ilaa iyo Lindelof ilaa Maguire ilaa iyo Telles Ronaldo waa weerarka hogaaminaya Ramsdale baa halka ku jira caawa min Toma Yusuf Benjamin waa Ben White iyo Gabriel iyo Tavares waa ragga caawa ku soo bilowday ciyaartan weyn weeyaan ya halka sidoo kale caawa ciyaarayaan Partey iyo ninka lagu magacaabo El Neni waa caawa Algarve Martinelli iyo Odegaard iyo Israawi baana caawayana weerarka hogaaminaya kooxda Arsenal runtii baryahan waa ka wadataa Man United maxaa yeelay Arsenal mar laga badin lixdii ciyaar ugu dambeysay oo labadan ay wada ciyaareen Premier League laakiin ma dhicin baa leeyahay taariikhda Man United in todoba ciyaar soo xigtay wax guul ka weysay Premier League kooxda Arsenal marka caawa dhaarsayn ciidaha kan gaabna caawa ku jeekay Janobi Jona ku afar kornay Arsenal mar ayaan durba daqiiqada ugu horeeyay ciyaarta waa kan markan Qadar waa laga diiday markan waa kan Arsenal war maxaa dhacay degayn waa jiifay goolkan waa dhashay markuu digay iska jiifay buuroosha ugu dhex galiyay Banooniga war maxaad Banooniga laga dhigi karaa sidee loo xukumi doonaa Banooniga ka war VAR baa fiiri doona haddii Master Saif uu dhulka ku dhacay walla digay markuu jiifo roonu kuma doo ku shiday goolka yaa taabtay ballinkan Allah waan arki doonaa caawa sidii goolkan ay u xukumiyaan intuu digay jiifana goolka Rooba dhaliyay Smith Rowe goolku wuu istaagsan yahay goolka wuu jiri doonaa goolka wuu jiri doonaa wali yes Arsenal goal Smith Rowe ayaa dhaliya goolka Manchester waa lagu bilaabayo Qadar ayaa Old Trafford ku hogaamisay ciyaarta Manchesterna waa wada caroonayaan oo waa mudaharaadayaan maxaa yeelay digay ama hajiifto ama yaanu jiifan waa lagu tuuray goolka Arsenal way ku hogaamisay ciyaarta maxaa yeelay goolhayaha isaga un baa dhacay mooyaane cid bini aadan oo taabatay malaha waa jiifaana laga qalay ma jirtaa la leeyahay argoolhayaha naga jiifee maxaana laga dhalina adduunka ma jirto la leeyahay maxaa yeelay garsooruhu intaanu yeerin burugu gushabu ku dhex galay fariidu Firias garsooruhu fariin ma yeerin wali markuu sii waa ka goolkan waa dhashay waa gool Arsenal goal Manchester United ever markan waa kan Fernandes Manchester United goal Arsenal goal Bruno Fernandes ayaa gool soo celiyay waana soo afjaray 14 ciyaarood oo gool aana tiyaatar kariyada wali gool weyn baa laga filayay habeenka waka rayna arkaya goolkii ugu horeeyay waa hiisa tababarnimo isagoo kor ka daawanaya ciyaarta Arsenal kubadda tan way dhowraayeen marka ka dhalanaysa uu ka dhalaya goolka Jadon ayaa soo dhaafsiiyay Toma Yusuf Fred waka fantastic buu ahaa Allah Fred maqaar u ciyaaray Fred wixii la caayay waa ciribay kabweyn idinka Fred kasteen uu leeyahay dulqaata markan United Ronaldo halka jooga Rashford Ronaldo sideed boqol gool waa goolkiisii 800 ee kooxda waayaha kooxeed iyo xuleed waana goolkiisii 7aad ee uu ka dhalay kooxda Arsenal 16 ciyaar uu ka hor imaanayo Master unstoppable lama joojiyo gool gaarayo Rayna wuxuu leeyahay iska jir anigu waa yeelmaahi waa gool u muhiimsanaa noloshiisa weeyaan Cristiano 800 oo gool buu habeenkii ku gaaraya Rush ayaa halka u soo dhigayo lugta la gafay ciyaartoyga Arsenal min Partey min Gabriel min White intee wada dhaaftay ayuu Ronaldo ka soo baxay wow Cristiano Ronaldo 200 oo gool buu jira 1 gool oo way ciyaara waa mid kamid ah kuwii ugu fiicnaa Everton soo maray weeyaan ninkan haday laba ka dhigi karayaan yes Martin Odegaard afar gool habeenka waana goolkii labaad ee ciyaarta waaryaha ciyaar baanu daawanaynaa habeenka
arsenal 2 gool manchester united 2 gool wala jiri doona habeenka wiishka hayeero garisberg walla cidda waa diideen in guuldaro qaataan habeenka meel fiican buu ka helay martinelli laad buu laaday sidii raash sidii ronaldo kalena u agidiyay wana goolkiisii labaad tan iyo markuu sida rasmi kooxdan ugu soo biray martin Odegaard yes rigore manchester united baana goolkii saddexaad habeenka u socota Old Trafford waxay sugaysaa Cristiano Ronaldo kan Odegaard laga qabtay lama sheegine bal waanu sugnaa habeenka Ronaldo yes saddex gool United 801 gool 12 gool seasonka Old Trafford dib ayaa dhowla cadaynta u soo laabatay habeenka ugu horeeyay ee macalinka cusubna Fardis bay goolashu yihiin laakiin gadaashiisu waxba ka dhalanaya Manchester baan habeenka hogaaminaysa 5 gool baan habeenku la maraya waana daqiiqadii 70aad ee ciyaarta